si aan goor walba u xidhan fadlan subscribe furo gambaleelka waqti walba goor walba bismillaahi raxmaani raxiim qodobada wararka warbaahinta Safino TV aad saaka ku daawan doontaan waxaa ka mid ah maamulka gobolka Banaadir oo soo saaray amro ka dhana amniga caasimadda Muqdisho dad shacab ah oo ku dhintay qarax ka dhacay gobolka Jubbada Hoose ra'iisul wasaare Kheyre oo kulamo ka wada magaalada Gaalkacyo wasiir Sadiq Warfa oo la kulmay safiirka Turkiga ee Soomaaliya qodobka dibadda ee ka baxsan Soomaalida haata saaka ku daawan doontaan waxaa ka mid ah xuutiyiinta oo duqeeyay markab garoon iyo warshad koronto ee dalkaasi Sacuudiga daawadayaal qodobadaas waxay ayaan qodobada ugu door karoona warkayaga saaka markana ku soo dhawaada warkaasi oo faahfaahsan kadib kulan ay Muqdisho ku yeesheen guddiga amniga ayaa waxa ay ka soo saareen amaro dhinaca amniga oo la farayo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta dawladda iyo gaadiidleyda ku nool magaalada Muqdisho kulan ayaa waxa ka qayb galay gudoomiyaha gobolka Banaadir Naduqa Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Cumar Iriso iyo xubnaha guddiga amniga gobolka Banaadir waxaana kulankaasi u daba socday kadib falal amni daro oo ka dhacay magaalada Muqdisho amarda laga soo rogay kulankaasi ayaa waxa warbaahinta u sharaxay gudoomiyaha gobolka Banaadir waxaana sheegay in marnaba magaalada Muqdisho lagu arki karin askartu ku labisan dareeska militariga waxaana qaar ka mid ah mas'uuliyiinta dawladda uu ka dalbaday inay joojiyaan ilaalada oo marka qaar lagu arko gudaha magaalada dhinaca kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa digniin u diray milkiilayaasha gaadiidka sida bajaajta iyo gaadiidka kale isagoo sheegay in gaadiidkoodu diiwaangeliyaan isagoo sheegay in dadka iska iibiya gaadiidkoodu u diiwaangashan dhibaatadii lagu geystay mas'uuliyadooda qaadi doonto marka ku saabsan dhanka amniga gaar ahaan in magaalada Muqdisho lagu arki karin askartu ku labisan dareeska ciidanka militariga ayaa hore waxa uu soo saaray wasiirka amniga Soomaaliya Zayeeshe amarkaasi ma uusan dhaqangelin dad shacab ah ayaa ku dhintay qaraxa ka dhacay gobolka Jubbada Hoose qaraxan oo ahaa mid nooca markaasi miinada dhulka lagu aaso ayaa waxa uu ka dhacay duleedka degmada Dhoble ee gobolka Jubbada Hoose waxaana la sheegay in qaraxa uu qabsaday gaari sarnaayeen dad shacab ah goobjoogayaal waxay sheegeen in gaari hoomey oo ka mid ah tulooyin hoostaga degmada Dhoble oo qaraxaasi qabsaday gaarigaas oo aamin subaxii hore shalay aano ka qaaday degmada Dhoble hase yeeshee markii uu soo laabtay qaraxaasi qabsaday isku duwaha wasaaradda caafimaadka degmada Dhoble Nuur Biix ayaa sheegay in qaraxaasi ku geeriyoodeen saddex ruux halka laba kale ay ku dhaawacmeen oo mid ka mid ah dhaawiciisu iyo mid culus hase yeeshee war kale soo baxay ayaa waxa ay sheegeen in qaraxaasi dadka ku dhintay ay kor u dhaafayeen ilaa 7 ruux oo qaarkood la geeyay cisbitaalo ku yaala degmada Dhoble ee gobolka Jubbada Hoose ma jirto cid ilaa ay hadda ka hadashay ama sheegata qaraxa miino ee qabsaday gaari ay wateen dad shacab ah hase yeeshee waxa qaraxyada noocaasi oo kale ah ka dhacay gobolka Jubbada Hoose la eegta ciidamada dawladda iyo kuwa Kenya waxaana mas'uuliyadooda sheegta ururka Al-Shabaab ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa kulamo ka wada magaalada Gaalkacyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya wafdi hogaaminayo ayaa xalay ku iday magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug iyagoo safar dhinaca dhulka ay shalay galinkii dambe uga ambabaxay magaalada Cadaado ee gobolka Galguduud wafdiga oo ay qayb ka ayaan wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya ayaa tan iyo xalay waxa kulamo ay ka wadaan gudaha magaalada Gaalkacyo iyagoo la kulmay maamulka degmada kan gobolka Mudug ee maamulkaasi maanta Talaado ayaa la filayay ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre uu la kulmo odayaashii waxgaradka magaalada Gaalkacyo iyagoo ka hadli doona tabashada ay ka qabaan dawladda federaalka ee dhismaha Galmudug midaysan shalay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa wuxuu tagay magaalada Cadaado si uu kulamo odayaasha dhaqanka Cadaado ula yeesho hase yeeshee waxa la sheegay inay diideen ay la kulmeen in ay la kulmaan iyagoo sheegay in uu ballamo hore uga baxay balse waxaan weli la ogaan karin in odayaasha dhaqanka magaalada Gaalkacyo ay dhankooda ra'iisul wasaaruhu la kulmi doonaan waxaana warar soo baxay sheegeen odayaasha dhaqanka Gaalkacyo shuruud uga dhigi doonaan la kulanka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya inuu ka barsugo kulanka 10 bishan ee Gaalkacyo ku yeelanayaan odayaasha iyo waxgaradka gobolka Mudug xaaladda maamulka Galmudug ayaa weli waxa ay muuqataa mid aan hagaagin waxaana jirta tabashooyin ay qabaan beelaha qaar ee deegaanada Galmudug waxa si xusid mudan in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu ku guuleystay in ciidamada Al-Sunna la qarameeyay kuna biiran kuwa dawladda Soomaaliya wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Sadiq Xirsi Warfa ayaa xarunta wasaaradda ku qaabilay safiirka dawladda Turkiga u fadhiya Soomaaliya Mudane Mehmet Yilmaz wasiir Sadiq Warfa oo weliyo agaasimaha guud ee wasaaradda iyo xubno kale oo wasaaradda ka tirsan ayaa wada hadallo yeeshay safiirka dawladda Turkiga wada hadallada diiradda lagu saareeyay heshiiska afgaradka ay u dhaxeeya dawladda Soomaaliya iyo Turkiga safarka ayaa ka dhigay in labada dal ay iska kaashadaan
qaadaan horumarinta dhaqaalaha iyo kor u qaadista shaqada dhalinyarada. aad ayaan ugu faraxsanahay safiirka inuu halkan wasaaradda noogu soo booqdo oo uu arko shaqada ka socota wasaaradda muhiim weyn u leh dalka, ayuu yiri wasiir Sadiqa. wasiirka ayaa sidoo kale warbixin ka siiyay safiirka dowladda Turkiga ah ee dadaalada socda ee la xiriira horumarinta shaqaalaha, taasoo uu sheegay in lagu gaaray celista shaqaale xirfad wanaagsan u leh hawlo fulinta qaranka. wuxuuna bogaadiyay garab istaaga dowladda iyo bulshada Turkiga ee Soomaaliya, isagoo markaasi sheegay in dowladda Soomaaliya ka go'an tahay xiriirka wanaagsan ee labada dal in ay uga faa'iideysato sidii dalka mar kale u soo koban lahaa. fariinta madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ee aan ka howlgalno hayaa in qaranka loogu shaqeeyo sidii uu mar kale cagiisa ugu istaagi lahaa. Turkigana wuxuu ka mid yahay walaalaha garab istaaga muuqda siiyay Soomaaliya xilliga ayuu baaneed, ayuu ku daray wasiir Sadiqa Warfa. safiirka dowladda Turkiga u fadhiya Soomaaliya Mudane Mehmet Yilmaz ayaa dhankiisa cadeeyay dowladda Turkiga inay saxiixday heshiiska is-afgaradka oo markaasi ku soo dhamaado dhinaca dowladda Soomaaliya lagu gudaha gali doono fulintaasi. wuxuu intaasi ku daray dowladda Turkiga in ay dadaal badan galinayso sidii loo horumarin lahaa shaqaalaha iyo kor u qaadista shaqada iyo arrimaha bulshada, oo sheegay inay xoojinayaan dadaalada dib u soo kabashada Soomaaliya. halka warka aad ka daawanaysaan waa TV-ga Shafino. markana warka dibadda, afhayeenka isbahaysiga militariga ee Sacuudiga Colonel Turki Al-Maliki ayaa sheegay in ay maleeshiyada Xuutiyiintu weerareen markab ganacsi oo marayay badda Cas. wuxuu tilmaamay in Xuutiyiintu ay adeegsadeen dooni nooca aan la wadin inay ku weeraraan markabkaasi oo marayay biyaha koonfureed ee badda Cas. wuxuuna xusay in ay burburiyeen doonidii fulisay weerarkaasi. ma uusan sheegin dalka laga lahaa markabka la weeraray iyo haddii ay jiraan khasaaro soo gaaray badmaaxiyiinta iyo shidaalkii waday. dhinaca kale, maleeshiyada Xuutiyiintu waxay sheegeen inay xalay drones ku weerareen garoon ku yaala magaalada Aba iyo warshad koronto oo ku wada yaala magaalada Aba ee koonfurta dalkaasi Sacuudi Carabiya. isbahaysiga Sacuudigu waxay sheegeen in ay hawada ku burburiyeen waxa u muuqday diyaarad drone oo dul maraysay garoonka diyaaradaha Aba. telefishinka Al Arabiya ay dowladda Sacuudiga leedahay waxay sheegeen xaaladda garoonka caadada ayaa kadib markii la burburiyay droonkii lagu soo weeraray. guud ahaan daawadayaal warkii oo aad kala socoteen Shafino TV waynaga intaa.